gudoomiyaha banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi ayaa sheegay in dalka soo gashay lacag dollar oo foojariya taasoo ah lacagta $50 waxaana uu gudoomiyuhu ka warbixiyay lacagtaas been abuurka iyo astaamaha lagu garan karo ay kaga duwan tahay lacagtii hore dalka u taalay. bulshada Soomaaliland aan halkan ku ogeysiiyo in ay dalka soo gashay lacag been abuura ama foojariya oo ah noorka kontonka ah noorkaasi wuxuu leeyahay 12 calaamadood oo ka duwan yahay noorka caadiga ah marka gadaal baanu idinka sheegi doonaa waxyaabaha uu ka duwan yahay ka caadiga ah iminka wuxuu ma sii xusayaa 3 qodob ama astaamood waxa weeye noorka forgery ahi wuxuu soo baxay 2013 lacag badan oo dollar ah ayaa sanadkaas soo baxday marka oo wada forgery ma aha wixii 2013 aad ku aragtaan laakiin samka inta forgery ah dhamaantood waa 2013 ayaa la soo daabacay waxa kale oo ka duwan yahay noorka kale caadiga ah wuxuu ka wada bilaabmaa 427 serial numberkiisu 427 ayaa ku wada qoran oo ka bilaabmaa 2013 koonaha yar ayay kaga qoranta astaanta kale muuqataa waxa weeyaan waxa koonaha kaga qoran B2 marka saddexdaas astaamood oo markiiba ishu qabanayso ayuu leeyahay noorka forgery-ga ah lacagtani halkay ka soo originkeedu ama halkay ka timi waxaa la sheegayaa oo ilaa xoogaa noo sheegay in xamar ay ku soo horeysay oo kulay hawlaha ka socday doorashooyinka iyo waxaas baa laga yaabaa inay la xiriidho dabeetana waxay soo martay dalka Itoobiya gudihiisa dabeetana Wajaale ay soo gaadhay Wajaalena waa ka soo siqday oo imika Hargeysa way soo gaadhay lacagtani muddo dheerna ma socona waa ilaa 20 cisho ayaa lagu qiyaasayaa inta imika Jamhuuriyadda Soomaaliland ay gudaheeda ku jirtay weli gobolada bariga Burcay iyo wixii ka shisheeya aad uma gaadhin haddii gaadhina waa wax fara ku tirisa sidoo kale waxa uu xusay gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland in qaar ka mid ah dadkii lagu tuhmay in lacagtaasi dalka soo galiyeen xabsiga loo taxaabay lacagta markaa dad baa siday oo la soo galay wadanka oo saan sheegayo Wajaale meelaha kala soo galay dadka qaar waa xidhan yihiin oo waa la qabtay oo ciidamada amnigu way qabteen inta kalena way ka duba jiraan waxaan markaa bulshada Soomaaliland ugu baaqayaa in aanay qaadan wixii lacag ah dollar ah konton ka dollar ah ama sax ha ahaado ama forgery ha ahaado inta ay wax kala miirmayaan in aanay $50 qaadan waxa kale oo gudoomiyaha banku uu soo jeediyay shacabka Soomaaliland inay isticmaalaan lacagta shilinka Soomaaliland lacagteena waxa weeyaan legal tender wadanka uu ka shaqeeyo waxa weeyaan Soomaaliland shilling ta sharciga ee qaanuuniga ee wadankan ka shaqeynaysa waa shilinka Soomaaliland lacagta qiimaheedu wuu degan yahay mudooyinka 3 sano ku dhow 8500 ma dhaafin wax yar bay kor u kacday ama hoos ku dhacday iyada ka qiimo badan oo ka degan dollarka muddada ay sheegayo lacagteenu 22% ama 22% kor u kacday marka waa lacag degan oo la isku haleyn karo waxaan kula talinayaa bulshada Soomaaliland inay aaminaan lacagtooda oo ku ganacsadaan oo wax ku kala bedeshaan dollarku wuxuu la mid yahay lacagaha qalaad sida riyaalka Sacuudiga leeraha Talyaaniga waa lacagaas la mid yahay ma aha lacagtii sharciga ahayd ee wadankan loogu talagalay in ka shaqeyso laakiin se dhaqan bay noqotay marka meheradaha ganacsiga waaweyn ee laga iibsado gawaadhida iyo dadka daarta dhulka iibinaya ama daaraha waxaan uga digaynaa inay lacag kaasha oo fara badan ay qaataan waxa ugu wanaagsan inay check qofka ka iibsanaya ka qaataan qofka lacagta sitaan oo baanan ka intuu soo dhigo check ka soo qaato dabeetana ku iibsado
waxaan ka hadlayaa waxyaabaha waaweyn ee ganacsiga lagu kala qaadanayo. ugu dambeyntiina gudoomiyaha banka dhexe waxa uu sheegay inay shuruudo kala duwan ku xidheen lacagaha dalka laga soo gelinayo gobolada bari ee Somaliland. kadib tobanayna inay lacag forgery waddankeena soo gasho ama dollar ama Somaliland shilling waxaanu soo saaray wareegto aanu ku joojinayno ama ku mamnuucayno in wixii ka badan 20 milyan oo Somaliland shilling ay ka soo gudbaan gobolada bariga Somaliland ee Sool iyo Sanaag marka qofkii sita lacag ka badan 20 milyan oo shilinka Somaliland waa inuu warqad ka soo qaato laamaha banka dhexe Ergabo Lascaanood ama Caynaba saddexda branch ee ku yaala bariga Somaliland waa inuu ka soo qaato warqad cadeyna oo cadeynaysa lacagtaasi inay tahay mid sax ah oo aan forgery ahayn. Maxamed Ugur Xasan, Sab TV. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom.